السلام عليكم دمانتين كسو دوادا muuqaal kale oo aynu kaga hadlayno ama aynu kusoo bandhigno qaabka aad youtube-ka aad usoo dhigi lahayd muuqaal ama video kuu diyaarsan. sidii muuqaalkii hore aynu kusoo aragnay, waxaynu hadda geli doonaa qaybtii labaad. Marka aynu hore usoo sameynay ayaa waxaynu sameyn doonaa sida aynu hore ugu ballanay in aynu video soo gelino. Marka video haddii aad soo gelinayso youtube-ka markaad sidan ugu jirto, waxaad gelaysaa ama aad ku dhufanaysaa meeshan create a video and more. marka halkan markaad ku dhufato laba qaybood ayuu kala baxayaa. qaybta upload video markaa ku diyaarsanaa oo mobilkaaga ku jira ama computerkaaga ku jiray oo ku diyaarad soo gelinayso, iyo haddii aad go live haddii aynu dhahno live ayuu toos u tagayaa. marka hadda waxaynu rabnaa inaynu galno qaybtan oo ah upload video inoo diyaarsan. video yaro kooban oo tusaalaha ayaan hadda sameeyey. muuqaalkaas ayaan rabaa inaan hadda soo gelino oo aynu ku tijaabinayna. halkan ayaad ku dhufanaysaa. hadda ayaad bilaabaysaa buu yidhi samaynta videoyada. marka get started ku dhufo. marka waxaynu dooranaa labadan qaybood. qaybtan magaca uu ku qoran yahay Geedi Rooble. qaybtan ayaynu mataqaanaa ku dhufanaynaa si aynu usii gudagalno barnaamijyadeena youtube-ka. select markaad tiraahdo qaybtan ayuu ku keenayaa pagekan oo isagana laga rabo inaad ku qorto waxyaabo muhiim ah sida facebookkaaga, instagramkaaga, twitter haddii aad leedahay, iyo website haddii aad leedahay. qaybtani waa qaybta ay marka ay kusoo booqdaan dadka subscribers ay arki karaan ama dadka mataqaanaa kugu xidhan sida facebookkaaga, instagramka, twitterka. halkaasina waa website-ka. marka qaybtani muhiim bay u tahay waayo meelo lagaala soo xidhiidho haddii aad leedahay youtube-kaaga way ka fududahay in mataqaanaa su'aalaha lagu soo gudbiyo ama macluumaad lagula wadaago ama waxyaabo muhiima. halkanna waa qaybta description-ka. qaybtana waa waxyaabaha uu channelkaagu ku saabsan yahay ama waxyaabaha aad ugu talagashay channelka. sida caadiga channelada youtube-ka waxay u qaybsan yihiin qaybo sidan kuwan Soomaalida maaha isdhexyaaca ah. laakiin haddii aad eegto youtuberada kale ee aan Soomaalida ahayn sida ajaanibta oo kale, mid waliba wuxuu youtube-kiisu khuseeyaa barnaamij gaar ah. qaarkood ayaa waxay soo bandhigaan waxyaabaha design-ka, qaarkood waxay soo bandhigaan heeso, qaarkood waxay soo bandhigaan talent. marka youtuberada ajaanibtu aad bay u kala duwan yihiin, midna mid kuma daydo sida Soomaalida. halkana loo badan yahay maanta halkan samee riwaayad baa la jilayaa, riwaayad jil. tusaale ahaan halkan tijaabo ayaynu iskaga qoranaa maadaama aynaan ugu talagelin inaan youtube-kan in badan isticmaalno. tijaabo marka qofka kusoo booqda halkaas ayuu fiirin doonaa. waa website-kii iyo facebook-kii sida halkaasaad ku qoraysaa website-ka website-ka magaciisa .com.de sidaad website-kaagu yahay. halkan waa facebook-kii, instagram-kii iyo twitter-kiina way ka hooseeyaan. markaas qaybtana saas ayay ku eg tahay. marka hore ayaynu uga soconanaa. qaybtan markaaynu hore uga soconno, halkan ayaa inoo soo baxday. qaybtan waa qaybtii ugu muhiimsanayd. waa meeshii loogu talagalay inaad video ka soo upload garayso ama aad ka soo qaado. markaas waa ka channelkaaga magaciisii Geedi Rooble. channelkaaga wax no subscribers waayo muddo yar ka hor baynu sameynay tusaale ahaan aynu u sameynay channelkan. marka qof ina soo subscribe gareeyay ma jiro. marka qaybtana waa qaybta videoga kuu diyaarsan ee kuugu jira aad ka soo qaadanayso. marka qaybtan ayaad ku dhufanaysaa. halkaas ayaad click siinaysaa. qaybtan kore ee ninka kamarada haysta macnaha waa videoyo hore may inoo oolin, saas darteed waa lagu soo dhaweynaya, waa sawir iska soo dhaweyna. marka waxaynu hore ugu soconaynaa upload. halkaas markaan click garayno wuxuu ina geenayaa computerkaaga dhexdiisii. computerka video yar ayaan kusii diyaariyey. videogaas oo video yar oo iska kooban ah oo tijaabo ah. marka videogaas ayaan rabaa inaan kasoo qaato halkan. waa kan videogu waa 23 sakin ayuu soconayaa. ma badna laakiin waxaan idinku tusayaa uun kaliya tijaabo ahaan. halkaas ayaad ka dooranaysaa choose, click si kadib uu soo qaadaya. halkan marka uu kugu soo dejiyo videogii, qaybtan ayuu soo fadhiisanayaa videoga ama ka soo muuqanaya. linkigana waa linkiga videoga haddii aad rabto qof inaad u koobiyeyso markaad daabacdo.
ama aad soo dejiso kadib. qaybtana waa qaybtii titleka halkan waxbaa kusii qornaa, iska masaxnaa. titleka tijaabo inooga dhig isagana sidoo kale tijaabo markaad ku qorto. hoostana waa descriptionka. videogan muxuu ku saabsan yahay? videogan waxa uu ku saabsan yahay ba halkan lagu qoraya. marka videogu hadii uu yahay video sportia, waxyaabaha uu ka kooban yahay sida sportiga ayaad ku qoraysaa. hadii uu warar yahay, wararka wixii ugu muhiimsanaa baad halka ku qoraysaa. marka imika kuma sii dheeraano, tijaabo inooga qor isaga laftiisa. marka halkan waxa lagu ogol yahay 5,000 oo xaraf. imika waxaynu isticmaalnay kaliya 7 xaraf oo tijaabo ah. marka qaybtana waan ka gudbi doonaa. qaybta labaad ayaynu gudbinaa. oo kaas videogii hadda ayuu inoo soo degay ama uu inoo soo muuqday. marka sawirkana waa sawirka soo muuqda inta aanad mataqaanaa videoga furin. video kasta oo YouTube-ka yaala thumbnail-ka waa sawirka yar ee indhaha dadka soo jiita. marka YouTube-ku mid buu automatic ugu doorayaa. marka midkaad rabto 3dan option baad haysataa. hadii aanad rabina mid kale ayaad soo download gareysan kartaa oo soo gelin kartaa. marka 3daas midkood isticmaal. hadii aanad rabina mid kale oo ku diyaarsan ayaad computer-ka ka soo qaadan kartaa. qaybtana hadii aan hore uga sii gudubno, hoosta waa playlistigana waa hadii aynu playlist leenahay ama qaybo. tusaale ahaan hadii YouTube-kaaga aad waxyaabo badan kusoo gudbiso, qayb sportia, qayb madadaala, qayb mataqaanaa waxyaabo noocaasa. marka qaybtan playlist weli maynu sameyn. marka iyadana sideedaas ayaynu uga gudbaynaa. qaybtan hoosena waa cidda loo ogol yahay inay daawato. marka no, it's not made for kids. ciyaalka looma sameyn ayaynu qaadan doonaa. yes, it's made for kids. hadii wax ciyaalku daawan karaan yihiin taa koobaad ayaad click garaynaysaa. hadii kalena tan hoose. markaas tan hoose ayaynu iska dooranaa. tusaalaha hore ugu sii soconnaa. maadaama aad barnaamijka inta badan dad waaweyn usoo gudbinayso, waxaa kula gudboon markasta inaad qaadato no, it's not made for kids. kadib waxaynu odhanaynaa next si aynu hore ugu sii soconno soo dejinta ama soo daabicida videogan yar ee aynu soo gelinay muuqaalkan yar. marka labadan qayboodna waa add an end screen-ku waa marka uu videogu dhamaado waxa yaree dambe ee videoga dambe ee ku soo jeedinayo. add a cardna waa cardskuna waxa la yiraahdaa qaybtan yar ee marka uu videogu socdo korka ka soo muuqata. macna video kale ayaa lagu soo jeedinaya inaad daawato. marka qoraalka yar korka ka soo muuqda hadii aad rabto halkan ayaad ka sameynaysaa imika intaan daabicinba. marka labada midna ma hayno. next inoosi si aynu hore ugu sii soconno. qaybtan waa qaybta public iyo unlisted iyo private bay kala yihiin. marka hadii aad rabto in dadkoo dhan wada arkaan, public ayaad odhanaysaa. hadii aad dad gaar ah u dirayso linkiga oo linkiga uun koobiyeynaysa unlisted baad odhanaysaa. hadii aad keligaa iyo inta aad dad u doorato uun inay arkaan aad rabtana private ayaad dooranaysaa. marka 3daas ay u qaybsan yihiin. inta badan dadku public ay ka dhigaan maadaama ay rabaan YouTube-ka inay ama lacag ka sameeyaan ama dad badan u gaadho. marka public aynu qaadanaa. publish aynu ku dhufanayna. publishtuna waxay toos u gudbinaysaa videogii ay YouTube-ka ugu daabacaysaa. marka halkan ayaad ku dhufanaysaa publish. marka kadib videogaagii toos ayuu u gelayaa YouTube-ka. waana 23 second. marka saas ayay ku dhantahay. wakaas videogii wuu inoo soo degay ama waan soo gelinay YouTube-kii. qaybtan hoosena waxaad ka arkaysaan social media qaybo kamid ah sida Facebook, Twitter iyo kuwan kale. marka hadii aad rabto inaad u qaybiso asxaabtaada, midkood ayaad ku dhufanaysaa. tusaale Facebook hadii aad rabto inaad ku qaybiso, Facebook ayaad click ku siinaysaa. halkaas aad hore ugu sii soconaysaa. intaas ayaan jeclaystay inaan maanta idin la wadaago. waxaanan idin soo gudbin doonaa ama soo diyaarin doonaa muuqaalo ku saabsan YouTube-ka oo aad kaga faa'iideysan doonto hadii aad tahay YouTuber, qaabka aad u isticmaali lahayd muuqaalo anfacaya qofka YouTuber-ka ah iyo barnaamijyo kale oo xiiso leh. fadlan subscribe, like lana wadaag asxaabtaada. waad mahadsantihiin.